السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب السوداء وهذا ما أنتم حيدين ودا ولا شنكرون سيلي هاي ما أنتم حيدين ودا شنكرون ما أنتم هربانا هذيك الشيء السيارة عجيبة أو محي تاني أنا إن أنا إذن لشار قريب قبل ولا شيء محي تاني لشار قريسي حتى ما بلديه كروح ليلة شرقري ووحنا نيجي جوبشو كأها أو مركي دعيان يسدو دعيان يعني سببه يكون وحدا بأفتن أن وحبنا كأوجا بسم الله الرحمن الرحيم أنا يدين بلابه وحبين هذا الكلام بعدين إن أبنا نفتح معي قدّا ولا على الصوماليات إن قصوينا أنا كلا لبعتونا أنا كلا كل عام سببته aniga gabadh aan ahay mana jecli gabadh walaashay kale in dhibaato ku dhacdo gabadh walaashay aan isku wadan ku nool nahay isku maxay tanay wax wada baran jirnay aad iskugu dhaweyn ayaa qisadan ku dhacda waxa dhacday gabadhan maxaa ku dhacay hadaba mana la dhihi karo waa qiso aad u xun mana la dhihi karo waa fiican tahay yani way jiraan wax dhibaatooyin badan ka xun oo dadka ku dhaca laakiin haddana dee waa wax already kolley qof kasta ma jeclaa gabadha walaashay waxa waaye waxbay baran jirtay ardayd bay ahayd oo annagaaba wax isla baran jirnay haddana way shaqayn jirtay marka waa is waraysanay waxaan ku idhi abaa iga waran xaaladaada maxaa kaa dambeeyay annagoo muddo sarag waxta abaa iminka alxamdulilah waa isukay haysataa waan shaqeeyaa waxbarashadii anigana waan wadaa waxbarashadayda iyo noloshayda shaqadaydan ka dibira yani biilashan waxbarashada wax kasta maxay ahayd noloshayda kirada wax kasta yani already waa dareemi kartaan waa qurbo meeshano qof ku tiirsan wuu iska yaryahayba qof family ku tiirsan wuu iska yaryahayba qof kasta wax laga yaabaa inuu naftiisa isaga maxay ahayd ay isaga ku tiirsan tahay markaas walaashay waxbarashadeeda iyo nafteeda iyo maxay ahaydeen wax kasta iyada ku tiirsanay marka waa ii sheegtay shaqadeedu wixii bay iga sheekaysatay inay ku qanacsan tahay already meeshay ka shaqayso qaabkeeda dadkay u shaqaynaysaa waxa dhan ay ila sheer garaysay xataa waxaa dhacday inay tustay yani goobtay ka shaqayso walaa aanan gelin laakiin aniga aan korka ka arkay goobtay ka shaqayso already waxaa dhacday muddo yar markii laga joogo gabadha iyo walaasheed sideedii aan isku ogeyn aan mar walba iska warhayno waxaa dhacday telefoon aa iisoo dhacay telefoonkaas waan qabtay aniga iga shakaroonay dalhada ayaa laysoo wacay waan qabtay marka gabadh baa isoo wacday waxay tihi walaalay shaqo ayaa bannaan shaqo ayaa cid loo raadinaya wakaasaye bal qof ma haysaa oo shaqo u baahan waxaan ku dhahay xaggee ka bannaan tahay maxay tahay adigu shaqadii informationkeedii baan ogaaday baan rabay inaan ogaado sababtoo ah gabdho badan oo dad badan oo shaqo u baahanaa ogahay waa iga sheekaystay waxaan ku dhahay walaalay meeshaas qof aan naqaano oo baaba ka shaqeeya see wuxuu jiraan haa qofkaas waa la bedelaa sababtoo ah shaqadiisa ma qancin dadkan uu shaqaynayo marka inay iska bedelaan bay rabaan marka adigu hadda garanayso qof shaqaynaya la kaalo qofka ma taqaanaa meeshan ka shaqaynaya haa baan dhahay marka already waxaan ku dhahay okay iyada ma loo sheegay qofka la bedelayo ma loo sheegay inaan shaqadiisa qancin waayo qof kasta markuu shaqaynayo dee qof mala yacni shaqaynaya ma jirto de adigu bisha markaad lacagteeda way xisaabsan tahay waxaa dhici karta inaad bishan waxaa samee bisha dambena waxaasaa sameynaysaa insha allah haddii ilaahay ku gaadhsiiyo already waxaa dhici karta gabadhan walaashay miskiinta ah bishan lacagta ay shaqaysanayso inayba meelo usii astaysnayd tii horena ay waxyaalo duruufeeda ku kala delatay marka already soo ma fiicna qofkan markaana shaqadiisa ku qancin aad ku tiraahdo bishan hadda aad ii shaqayso bisha dambe waa iska baxaysaa ku talagal sidaas asagana si uu yacni duruufihiisa uu sii ogaado yacni shaqadan inuu ka tegaayo laakiin niyadiisa asaga uu faraxsan yahay waxaan ku dhahay waxaan ma loo sheegay oo walaal gabadhaas waa gabadhaan ogahay oo yacni aan la wax badan kala socday ma loo sheegay inay shaqada ka tegayso yacni ayadana say goobo shaqo u raadsato say ogaato inay shaqadan ka tegayso shay dee wax badan ayadana maskaxdeeda sii galaan maya baa layidhi way baan dhahay sabab maxay ku dhacday maxaa loogu sheeg waay already waxay dhaheen bay tidhi ciddan waxay rabaan qof markay qof helaan oo booskan u buuxiyo inay qofkan iska fasaxaan
aada uga xumaaday wallaahi aada uga xumaaday aada u dareemay dhibaato badan kus gabadh walaasheen aniga duruufteeda ogahay xaaladeeda ogahay maxay ahayd ani inay saas ku dhacdo ma jeclayn waxaa aniga meel wax ka bilaabo ma garanay ani maya hadda ma hayo baan ma garanayo baan ku dhahay qofkaas ma garanayo baan ku dhahay waxaa dhacday gabadha inaan kulanay adigu maalmaha khamiisyada iyo maalmaha isniina iyo mara waxbarashada badana aan ku kulmi jirnay waan kulanay xaaladeedan ka waratay way faraxsan tahay qoftan maba ogaba dabinkan loo qoolayo maba ogaba waan waraysta waxaan ku dhaha baayo waxbaan rabaa inaan kuu sheego arrinta noocaasaa jirta ee adiga ma og tahay maya bay tabayaan waxbana kama ogi sheekadaas walaaley ani wax ma ka ogi mana umalaynayo inay jirtoba waxaan ku dhahay okay adiga shaqadaada wado laakiin ogow arrintaasaa jirta baan kuri maalmaha ay maalin noqon doontoba maalin inay aada ogaan doontaa umalaynaya baan ku dhahay okay bay dhahday wallaahi dee waxay dhahday waa inaan horta waytiniyadeeda waan kusii haynaya because waan dareemaya inaan wax aan jirin aanadii keenayn okay baan dhahay waa iska aamusay maalinkaan u sheegay waxayd maalin isniina wiigaas wuu dhammaaday wiigii dambaa la gaadhay talaadadii telefoon ay soo dirtay waa aniga baayo sidii aada ogeyd aada sheegtay baa igu dhacday bay tiri marka walaalahay gabdhaha walaalahay horta wallaahi gabadh mar walba soomaalida waxay tadaa bilis baris ma dheera aadaa uga murugooday asxaabteeda waa idinla soo sheegareeyey walaashay maxay haytaan horta alxamdulilah walow ay hadda aanay weli shaqo ay anfacdo helin laakiin alxamdulillah way iska fiican tahay wax dhibaataa ma qabto haddana dee yacni kan xadad bay qurbahan dadka jooga oo gabdhaha weliba dhibaatadaas oo kale ku dhacdaa mar walba waxaan rabaa qofka dadku u shaqeynaya inuuna isu dhiibin uusan islahayn marnaba weligaa kama tegaysid shaqadan iyo meeshan aad haysato sababtoo ah dadka waa bilaadan maalmaha ka bada is wada bedelayaan markaas waxaan leeyahay bal oo weliba gabdhaha waxaan leeyahay walaalayaal maxay haytane mar walba feejignaada mar walba haddaa shaqo haysatid adiga in bax lagu yaado waxaa ka fiican adig baxdidba oo tiraahdidba anigu anaaba tu kale oo tan ka hay sarraysa raadinayo markaas maxay haytane asxaabteeda aad baan idin salaamayaa soo dhawaada barnaamijka noo sii sheergaraya subscribe ku qabta ومهدسنتين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته